Hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa gudoomiyay shir muhiim ah oo looga hadlayay xaqiijinta amniga deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan xarunta ku meel gaarka u ah dowladda Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. Shirka waxaa ka qayb galay wasiirka amniga dowladda Koonfur Galbeed, saraakiisha kala duwan ee ciidamada ammaanka, gudoomiyaha gobolka Bay iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baydhabo. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga guud, dardargelinta wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo maamulka, sare u qaadista feejignaanta ciidamada, iyo sidii loo adkeyn lahaa qorshayaasha lagu ilaalinayo nabadda, xasiloonida iyo badqabka shacabka. Sidoo kale, hogaamiyaha dowladda Koonfur Galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa faray hay'adaha amniga inay sii laba jibaaraan dadaalada ay ugu jiraan sugidda amniga, ka hortagga falalka lidka ku ah nabadgelyada iyo ilaalinta shacabka, isagoo ku adkeeyey in si dhow la iskula shaqeeyo si loo xaqiijiyo amni waara iyo xasilooni ka hana qaada guud ahaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed.